qof ayaa u geeriyooday kooyi konton kale waa uu soo ritay cudurka COVID-19 24 saac aynu soo dhaafnay sidaas waxa warbaahinta u xaqiijisay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur dadka uu soo ritay badi waxay yihiin dad ku noolaa gobolkan Banaadir wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dadku ay qaataan talooyinka bahda caafimaadka 24 saac ugu dambeysay xaaladaha cusub ee soo kordhay waxa waaye 51 waxa rag ah 32 waxa dhadig ah haween ah 19 haddaan fiirino da'da dadka laga helay meelaha ay kala joogaan horta Banaadir waxa jooga 37 Puntland waxa jooga 12 Galmudugna waxa laga helay 2 qof oo zaa'id ah dadka laga helay da'dooda haddaan fiirino marka laga bilaabo 20 ilaa 20 da'dooda boqolkiiba waxay yihiin 5 20 ilaa 39 sano da'dooda dadka ugu dhaxaysa boqolkiiba waxa laga helay 49 40 ilaa 59 waxa waaye 21 60 sano iyo intii ka koreysa waxa waaye 26 boqolkiiba tirada guud ee dadka laga helay xaaladda wadanka oo dhan waxay gaaraysaa 722 dhimashada waxa ku soo kordhay hal qof Ilaahay ha u naxariisto tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 32 waxa ka bogsatay 10 qofood tirada guud ee bogsashadana waxay isugu tagaysaa 44 aan ku dadaalno nadaafadda aan ku dadaalno inaan kala dheeraano aan ku dadaalno inaanan ma aragtay meelaha ciriiriga iyo buuqa aan galno aan ku dadaalno inaan ilaalino guud ahaan xakameeyno cudurka inaan yacni ku dadaalno gacmaha inaan dhaqanno saabuun ku dhaqanno afka inaan xirino meelaha banaanka marka loo baxaayo meelaha buuqa la galaayo in yacni wax allaala wixii ay dadka khabiirada iyo caafimaadka ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka ay ku taliyeen ee ka hortag ah in la raaco waa muhiim bulshada qaybaheeda kala duwan waa inay ku wada dadaalaan sidii wacyigelintaas loo badin lahaa loo gaarsiin lahaa Soomaaliya